bismillaahi raxmaani raxiim waxaan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa 3 bisha Juun sanadka 2026 maalin Arbaca ah aan kula wadaago wararkii ugu dambeeyay waxyeelada soo gaartay garoonka diyaaradaha dalka Kuwait kadib duqeyntii diyaaradaha dagaalka ah ee dawladda Iiraan iyo gantaalada dawladda Iiraan ee ku weerartay Bahrain iyo sidoo kale dalka Ciraaq waa maxay sababta ka dambeysay Mareykanka isaga labada goob ee uu bartilmaameysada Iiraaniyiinta ay ka caroodeen iyo markabka dawladda Iiraan mar kale laga weeraray waxaan sidoo kale aan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dhanka iyo marinka Gaza afayeenka xoogagga iska caabinta oo ka hadlay dhacdooyinkii ugu dambeeyay markii ugu horeysay tan iyo 2023 imtixaanada ay u fariisanayaan ardada dugsiyada Al-Azhar imtixaankaas oo dalka Masar laga keenay waxaan kaloo aan eegi doonaa fariimaha jabaadaha yaa guuleysanaya Netanyahu Trump iyo sidoo kale dawladda Iiraan maadaama aad muddo mar kale dagaalka in la doonayo in dib loogu laabto waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo dhacdooyinka laga diiwaan geliyay duqeymihii ugu dambeeyay ee ay isweydaarsadeen Mareykanka iyo sidoo kale dawladda Iiraan soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo maracada show barnaamijka falanqaynta caalamka anigoo maracada ayaa ku waramaya haddii aad nagu cusub tahay kusoo biir saaxiibadeena si aan u gaarno in ka badan 1.5 milyan oo dadweyne ah oo ku xiran barteena YouTube-ka sidoo kalena Facebook haddii uu ku sahlan yahay waad ka mid noqon kartaa saaxiibadeena si aan 1 milyan aan u gaarno waad mahadsan tahay adigiyo asaaga asal waad wadaagtaan aragiyo itaalkiyo inaayana ma dheeride aqoontaad ku dhaaftaa معهد نافع أونلاين waxa ay ku diyaarisay barashada higaada Carabiga oo aad muddo yar oo kooban ku baranayso iyo taxfiidka Quraanka Kariimka ah iyo sidoo kale culumta shariicada sida fiqiga xadiidka tafsiirka siirada iyo luqadda Carabiga halka waxa kugu diyaara macallimiin ku hadla afka hooyo ee Soomaaliga iyo luqadda Ingiriiska waxaadna kala xiriiri kartaa nambarada shaashada kaaga muuqda معهد نافع لتحفيظ القرآن وعلومه markale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaan ku hormarayaa magaalada Gaza tan iyo 2023 markii ugu horeysay imtixaanada dugsiyada Al-Azhar ay maanta u fariisteen ardada dhiganaysa dugsiyadaasi xarumaha kala duwan ee daanta galbeed iyo sidoo kale marinka Gaza sida warbixinta lagu sheegay tani waa dhacdo kale oo taariikhi ah oo rajo gelinaysa qoysaska iyo ardada ku nool gudaha magaalada Gaza maadaama imtixaanada dugsiga sare ee Al-Azhar markii ugu horeysay la galayo wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar markii dagaal ay gashay magaalada Gaza ama dagaal ay ka dhaceen magaalada in ka badan 450 arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa maanta u fariisanaya imtixaanka dhismaha burbursanaado xaaladda si kasta ay noqotaba waxay galayaan imtixaankan oo laga keenay gudaha dalka Masar waxaana lagu waramayaa in imtixaankana lagu sixi doono gudaha dalka Masar maadaama dugsiyada Al-Azhar ay hoos tagaan ee jaamacadda ku taala magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar sidoo kale waxa wararku ay sheegayaan in imtixaanadan laga galayo ilaa daanta galbeed iyada oo daanta galbeedna imtixaanadu ay galayaan xilli dadka deegaanka ay la kulmayaan dhacdooyin ah in dadkii Israa'iiliyiinta ahaa ee halkaasi lagu deegaameeyay ee guryahoodii xoogayaan dhismayaal kale ay gubayaan xilli Israa'iil ay doonayso deegaameyn cusub oo ilaa 2,000 oo deegaan ah ay ka sameynayso dhanka iyo daanta galbeed dhacdooyinkii ugu dambeeyay la diiwaan geliyay waxa qayb ka ahaa in dad shacab ahaa oo Israa'iiliyiinta ciidankooda taageero ka helaya ay gubeen dhismayaal shacab ay lahaayeen oo daanta galbeeda xilli isku dayeen deegaanadaasi inay la wareegaan gudoomiyaha macadka Al-Azhar ee Falastiin ama qaybta Falastiin Dr. Ali Rashid Al-Najjar ayaa waxa uu dhacdo taariikhi ah ku tilmaamay imtixaanadan sida isku marka ah maanta looga galay daanta galbeed iyo sidoo kale magaalada Gaza waxaanu yiri waa guur weyn oo ardada u soo hoyatay xilli ay marxalad adag ay wajaheen labadii sano ugu dambeysay imtixaanadana aanay gelin sabab la xiriirta xitaa iskuulada aysan xaadirin sabab la xiriirta dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay gudaha magaalada Gaza sidoo kale caqabado badan ayuu sheegay in ay ka jireen magaalada Gaza waxa uu sheegay in guddiga gargaarka ee dawladda Masar ay ka shaqeynayay magaalada Gaza inay bixiyeen basaska lagu qaadayo ardada si ay xarumaha imtixaanada ay u tagaan maadaama ku dhawaad kala bar ardada imtixaanaadka galaysa yihiin dadkii laga soo barakiciyay waqooyiga magaalada Gaza kuwaas oo hadda ku nool dhanka koonfureed ee magaalada yani gawaaridooda ay ku taageerayaan si ardada imtixaanaadka waqtigooda ay ugu tagaan مسؤولينta waxbarashada waxa kale oo ay sheegeen in adkaysiga waxbarasho ee tooska uu yahay fariin muujinaysa adkaysi go'aan iyo in bulshada magaalada Gaza aysan ka quusan waxbarashada inkastoo ay wajaheen duruufo aad u adag muddadii dagaalka uu socday ilaa iminkana ay wajahayaan dadka qaarkii maadaama ay adag tahay inay dhaqdhaqaaq ay sameeyaan
Israel weli waxay sidaas oo ay tahay ee wadada duqeymo ay ka fulinaysa magaalada Gaza iyada oo la beegsanayo waqooyiga koonfurta iyo sidoo kale bartamaha waxa sidoo kale wadaan isballaarintooda iyada oo saldhigyo cusub iyo xarumo ka samaysanaya gudaha magaalada Gaza. macluumaadkan iyo imtixaanka waxyaabaha ka soo kordhay barnaamijyadeena kale ayaan kugu wadaagaya insha Allah like muuqaalka la wadaag saaxiibadaada wad mahadsan tahay. markaan aan eegno dagaalka Iran iyo sidoo kale Mareykanka. fadlan haddii aad ku sugan tahay goobaha colaada ha sameyn sida ninkan uu sameeyay oo kale. mid ka mid ah darawallada gaadiidka caadiga kaxeeya ee dalka Kuwait ayaa isku dayay in uu daawado gantaalada iyo diyaaradaha droniska ee dawladda Iran ay ku weerartay maanta dalkaasi xilli uu wada highway ama wada aad u dheer uu saaran yahay. laakiin intii gadaal uu eegay maadaama iftiinka uu ka dambeeyay waxa uu ku dhacay mid ka mid ah dhagaxyadii loogu talagalay inay gawaaridu ay kala xakameeyaan wadadii uu ku socday. marka sidaas oo kala sameeynin si aadan ula kulmin dhacdada ninkan qabsatay oo kale. muuqaalkan waxa soo bandhigay Arbacada maanta ah ciidanka ilaalada kacaanka ee dawladda Iran waa gantaaladii ay waabarigii maanta ilaa xalay saq dhexe ay ku weerareen qaybo badan oo kamid ah dalalka Khaliijka si gaar ahaaneed dalka Bahrain iyo Kuwait iyo sidoo kale dalka Iraq. waxaana ay sheegeen muuqaalka gantaaladan inay yihiin kuwo ay kaga jawaabayeen weerar dawladda Iran ay la kulantay. haddaba aan kula wadaago marka hore halkay sheekada ka bilaabatay maxaa Iiraaniyiinta ka careysiiyay maadaama maalmihii ugu dambeeyay wax kasta oo loo geystay jawaabteeda ay bixinayeen Iiraaniyiinta. dawladda Iran waxay sheegtay inay la kulantay laba weerar. mid ka mid ah waxa lagu qaaday mid ka mid ah maraakiibta shidaalka qaada ee dawladda Iran xilli uu ku sugnaa marinka Hormuz loo yaqaano. markabkaasi sida sawiradiisa oo la helay ay muujinayaan qaybaha hore ayuu ka gubtay gaar ahaan qaybta motorka waxaana taas ay keentay fariin digniina dawladda Iran inay u dirto Mareykanka. inta wixii ka dambeeyay Iran waxay mar kale in la kulantay weerar. wuxuu Mareykanka u weeraray jasiiradda Qashim lagu magacaabo ama Qashmi. jasiiradan oo muhiim u ah dawladda Iran marka marinka Hormuz la joogo dhanka shidaalka iyo dhoofintiisa marka la eegana dawladda Iran ahmiyad gaar ahaaneed ayay jasiiradan ay ugu fadhidaa. wixii marka ka dambeeyay marka Iiraaniyiintu way xanaaqeen waxaana ay go'aansadeen inay jawaab cad ay bixiyaan iyaga oo beegsaday sida ay sheegeen maraakiibta Mareykanka ee ku sugan gobolka gaar ahaan biyaha Iran u dhow iyo saldhigyada Mareykanka ee dalalka Khaliijka si gaar ahaaneed Kuwait, Bahrain iyo sidoo kale Iraq. Mareykanka isagana wuxuu sheegay in jasiiradda Qashim uu beegsaday goob sida la sheegay ay yaaleen sida iyagaba ay sheegeen gantaalo iyo diyaarado dronesa kuwaasoo inta badan lagu weeraro maraakiibta dagaalka iyo kuwa ganacsiga ee ku sugan biyaha marinka Hormuz iyo hareeraha biyaha dawladda Iran. waa sida Mareykanka uu inoo sheegay. aan eegna marka saddexda wadan ee Iran ay weerartay iyo dhacdooyinka laga diiwaan geliyay. dawladda Kuwait qoraal ayay soo saartay maanta waxaana lagu sheegay qoraalkaasi inay waxyeello gaartay Terminal 1 garoonka diyaaradaha ee dalkaasi Kuwait oo magaalada Kuwait City ku yaala. waxaana la sheegay in waxyeello yar ay soo gaartay inkastoo faahfaahin aan laga bixin kadib markii diyaarad drones ay halkaas ay ku qaraxday. laakiin Mareykanka wuxuu yiri gantaaladii Kuwait lagu weerarayna waan ka hortagnay kuwii Bahrain lagu weerarayna waan ka hortagnay. Bahrain waxa ku yaala saldhigga ciidamada badda ee dawladda Mareykanka ee ugu weyn gobolka Bariga Dhexe. Mareykanka halkaas ciidan badan iyo maraakiib ayaa kaga sugan. Iran waxay sheegtay iyagoo ka jawaabaya markabkii Hormuz lagu bartilmaameedsaday in iyagana ay weerareen maraakiibta Mareykanka ee biyaha gobolka ku sugan iyo biyaha Bahrain ama saldhigga Mareykanka ee dalkaasi Bahrain. waxyeelo lama diiwaan gelin faahfaahin dheeraadna lagama hayo Bahrain iyo waxyaabihii ka dhacay. laakiin muuqaalo ayaa la soo bandhigay oo muujinaya qaar ka mid ah diyaaraduhu inay ku qarxeen xaafadaha ku yaala gudaha dalkaasi gaar ahaan magaalada caasimadda iyo agagaarka saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay dalka Bahrain. Iran sidoo kale waxay sheegtay inay beegsatay saldhig diyaaradaha helicopters ay Mareykanka u yaalaan waxaana loo badinayaa inuu yahay saldhig ku yaala magaalada Erbil oo gudaha dalka Iraq inkastoo faahfaahin dheeraada ciidamada ilaalada kacaanka ee dawladda Iran aanay bixin. marka la eego marka dawladda Iran waxay shaaci ka qaaday maraakiibtii shidaalka u qaadaysa ee la beegsaday inay u jawaabeen haddii weerar sidaas oo kale la kulmaan ay ka jawaabi doonaan. sidoo kale dawladda Kuwait waxa ay leedahay qaar ka mid ah diyaaradaha droneska waxay ku qarxeen dhismayaal ay dad shacab ah ay deganaayeen. Mareykankana wuxuu taagan yahay dhammaan diyaaradahaasi waan ka hortagnay waana soo ridnay. sidaa daraadeed Iran waxay taagan tahay waxaan weerarnay saldhig Mareykan uu leeyahay
gaar ahaan saldhigga ugu weyn ee ciidamada badda waxaan weerarnay markab cadowga uu leeyahay iyo saldhigga Mareykanka maadaama lagu xadgudbay bay yiraahdeen marinka Hormuz iyo agaarkiisa jasiiradii aan ku lahayn iyo markabkii ku sugnaa marka deegta marka dhinacyadan waxaad moodaa inay labada dhinac is ugaarsanayaan dagaalkii miyaa la doonaya in dib loogu laabto Mareykanka gaar ahaan madaxweyne Trumpna arinta dagaalada iyo wada hadallada waa uu ka hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo dadkii hore ula soo shaqeeyay Trumpna isaga ay ku eedeynayaan inuu ku dhacay dab inuu isla isaga isu dhigay dawladda Iran qoraalkeedana waxay ku leedahay jawaabta weerarkan waxay noqon doontaa mid socota ama yacni mid joogta ah haddii weerar aan la kulanno kamana baaqsan doono inaan mar walba ka jawaabno weerar ama gardarracad oo Mareykanka iyo Israa'iil nooga timaada waan arki doonaa wax walba oo ka soo kordha dawladda Bahrain waxay leedahay 3 gantaal ayaa nooga yimid dhanka iyo dawladda Iran iyo sidoo kale qaar ka mid ah diyaaradaha droonisa waa weerarkii ugu cuslaatan iyo 8 April heshiiska markii la gaaro dawladda Iran ay ku qaado qaar ka mid ah dalalka Khaliijka mar way dhacday dhowr jeer inay Imaaraadka iyo dalal kale ay diyaaradaha droonisa ay ku weerarto laakiin kani wuxuu ahaa midkii ugu xooganaa oo la mid ah yani xilligii dagaalka lagu jiray oo kale si isku mid ah in dhowr dawladood oo Khaliijka ku yaala ama wadamada Carabta inay si toos ah u beegsadaan Iiraaniyiinta xiisadu weli way jirtaa dadaaladii iyo wada hadaladii diblomaasiyadeed way socdaan awood ahaan waa la istijaabinayaa waan arki doonaa cidda ku guuleysata istijaabintan iyo sidoo kale in haddii lagu guuleysto wada hadalada toos in lagu heshiiyo wax walba oo ka soo kordha si aad uga mid noqoto saaxiibada hela ku soo bir kanaalkeena like-san muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay afhayeenka xoogagga iska cabinta ee Xamaas ayaa warbaahinta la hadlay gaar ahaan garabka military Ciisadiin al-Qassam kadib markii uu xaqiijiyay geerida Ciisadiin al-Haddad iyo sidoo kale Maxamed Cawda oo ku geeriyooday duqeymo diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay ka fuliyeen gudaha magaalada Gaza afhayeenku wuxuu ugu baaqay dhinacyadii diblomaasiyadda iyo dadaalada bixinayaba ee wada hadallada yani garwadeynka ka ahaa inay dadaalkoodii laba jibaaraan haddii kale xaaladda haddii sidaan ay ku sii socoto marxaladda dhinaca kale u weecan doonto iyadoo Israa'iil ay sii wado ama ay xoojinayso duqeymaha magaalada Gaza ay ka fulinayso sidaas oo kale Israa'iiliyiinta ciidanka marka laga yimaado dadkii kale ee deegaameynta loo sameeyay iyagana waxaad moodaa inay burburin ay ka sameeyaan magaalada Gaza iyo sidoo kale daanta galbeed waxaana lagu waramayaa in ka badan 340 guri in la burburiyay saacadihii ugu dambeeyay burburintaasina waxaa sameynaya Israa'iiliyiinta doonaya inay gacanta ay ku dhigaan goobaha dadka shacabka ay deganayeen iyadoo ciidanka ay ilaalinayaan dhacdooyinka dadka loo geysanaya hadii aad aragto waad yaabaysaa oo qaarkood xitaa way hubeysan yihiin dadkii shacabka ay u imaanayaan way ciqaabayaan oday waayeel ayaad arkaysaa mararka qaarkii oo inta la xiray wadada la dhigay cidna aanay u dhawaan kareen ciidamada Israa'iil meesha ay joogaan oo ay daawanayaan beertiisii la gubayo xitaa mid ka mid ah dhacdooyinkii aadka loo hadalay toddobaadkii hore waxay ahayd markii nin Israa'iili ah yani odagii beertiisii iyo gurigiisii lala wareegay waxa u xirnaa xayawaanka eyga oo amniga xoolaha uu ilaalinayay yani eygii oo meel ku xiran sida u galaya hadii aad aragto aad yaabaysaa madax bir uga dhifo garaac sida u qeylin ay ugu dambeyntii yani goobta ayuu ku geeriyooday dhibaatadaas iyo dhibaatooyin kale oo waaweyn ayay la kulmayaan marka dadka shacabka ah ee daanta galbeed kuwaas oo deegaamadooda la doonayo in la xoogo si deegaameyn cusub loogu sameeyo Israa'iiliyiinta waxaana moodaa in lagu daawanayo dhammaan dawladihii kale ee gobolka dawlad kastaana hadda yani iyadaadba muddo culeys in uu haysto gobolka bariga dhexe marka aad eegto oo waxyaabo kale oo waaweyn inta lagu mashquulsan yahay hoos waxa ka soconaya dhacdooyin loo geysanayo dadka shacabka ah ee daanta galbeed iyo guud ahaan Falastiiniyiinta waxyaabo ka soo kordha oo kula wadaagi doona insha Allah muddo ka badan 3 bilood bariga dhexe waxa uu ku jiraa dagaal duqeymo hanjabaado iyo cabsi ay wajahayaan qaar ka mid ah dawladaha gobolka balse maanta waxaa soo baxaya xaqiiqo cusub oo yaab leh madaxweyne Trump ra'iisul wasaare Netanyahu iyo mas'uuliyiinta ugu sarreeya dawladda Iran dhammaantood waxay doonayaan in dagaalku gabi ahaan uu soo idlaado laakiin mid kasta wuxuu doonayaa in qaabka isaga danihiisa u adeegaya lagu soo gabagabeeyo dagaalka marka hore aan eegno madaxweyne Trump iyo sida uu doonayo madaxweyne Trump wuxuu u muuqdaa inuu gaaray gunaanud ah in dagaalka uusan sii socon kareynin danaha dalka Mareykanka marka la eego 3 bilood oo colaadaha kadib suuqyada shidaalka ayaa gariiray maraakiibta ganacsiga ayaa qatar galay dhaqaalaha dunidana waxa uu galay xaalad walaac leh sidaa daraadeed madaxweyne Trump oo doorasho galaya wuxuu doonayaa hal shay oo kaliya oo ah inuu ku dhawaaqo inuu soo afjaray dagaalka isla markaana uu dib u soo celiyay xasiloonidii gobolka bariga dhexe
wuxuu cadaadis kala kulmayaa saaxiibadiisa gobolka iyo sidoo kale bulshada gudaha Maraykanka iyadoo doorasho ay dhici doonto November-ta ina soo haysa. sidaasi awgeed si xoogan ayuu madaxweyne Trump wuxuu u riixayaa in heshiis lala gaaro dowladda Iiraan. wuxuu doonayaa in la adkeeyo xabad joojinta, in dib loo bilaabo wadaxaajoodyada, isla markaana dunida uu tuso inuu yahay ninka joojiya dagaalkii ugu khatarta badnaa ee bariga dhexe soo mara sanadihii ugu dambeeyey. laakiin halkaas waxaa ka bilaabanaya dhibaatada. qofka ugu horeeya ama ugu weyn ee madaxweyne Trump ka hor yimid si dagaalka loo soo gabagabeeyay ma ahan Iiraan, waa saaxiibkiisa ugu dhow gobolka ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo mar ay wada hadleen saacado ka hor uu ku tilmaamay inuu waalan yahay, sidoo kalena uu ka badbaadiyay xilligan inuu xabsi uu ku jiro. Netanyahu muddo dheer wuxuu doonayaa in Iiraan aan lagu joojin karaynin wadaxaajood iyo sidoo kale heshiisyo la gaaro. Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmala'aanta ragga iyo dumarka. ku dooro baaritaan la hubo, daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo. mahadsanid. wuxuuna aaminsan yahay in fursad dahabi ah uu helay tan iyo markii dagaalka la bilaabay. Israel waxay duqeysay xarumo military, xarumo dhaqaale iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan dowladda Iiraan goobo ay ku sugnaayeen. gudaha Israelna waxaa jira dad badan oo rumaysnaa in nidaamka Iiraan uu qarka u saaran yahay inuu burburo. laakiin wax walba sidaasi uma aysan dhicin. inkastoo khasaare weyn la gaarsiiyay dowladda Iiraan, haddana xukuumadda Tehran weli way taagan tahay. ciidanku weli way shaqaynayaan, hoggaankoodana weli ma uusan burburin. taasi waxay ka dhigan tahay in rayadii ra'iisul wasaare Netanyahu ee ahaa in nidaamka gebi ahaan la rido inaysan rumoobin. hadda Netanyahu wuxuu wajahayaa xaqiiqo adag. haddii dagaalku istaago, Iiraan way badinaysaa oo way badbaadaysaa. haddii Iiraan ay badbaadana, micnuhu waxa uu yahay in yoolkii ugu weynaa ee dagaalka ra'iisul wasaare Netanyahu inaanan la gaarin. sidaa daraaddeed marka falanqeeyaal badan waxay rumaysan yihiin in ra'iisul wasaare Netanyahu uu doonayo in cadaadiska military la sii wado si dowladda Iiraan loogu qasbo tanaasul weyn ama loo abuuro xaalad gudaha ah oo qalalaaso dhalinaysa. qalalaasahaasi siyaasadeedna isu bedeli karaya gacan ka hadal gudaha ah oo shaqadii ciidamada Israel ay qaban doonaan shakhsiyaad Iiraaniyiin ah oo Israel taageero ka helaya. laakiin dhinaca kale, Iiraan iyaduna waxay leedahay qorshaheeda gaarka ah. Tehran ma doonayso dagaal aan dhammaad lahayn. dhaqaalaha dalkaasi waxaa saaran culays aad u weyn, cunaqabatayntii weli way jirtaa, khasaaraha dagaalkuna waa uu badan yahay. laakiin Iiraan ma doonayso inay miiska wadaxaajoodka timaado iyada oo gacmaha kor u taagtay. waxay dalbanaysaa damaanad siyaasadeed iyo mid amni, oo waxay rabtaa in qayb ka mid ah hantideeda la sii daayo. waxay doonaysaa cunaqabataynta qaar in laga qaado. waxay si gaar ahaaneed u doonaysaa in arrinta Lubnaan lagu daro heshiis kasta oo la gaarayo. Iiraan waxay qabtaa aragtida ah in haddii la doonayo xabajoojin dhab ah Israel kaliya inaysan joojin dagaalka Iiraan, balse ay sidoo kale joojisaa weerarada ay ka fulinayso gudaha dalka Lubnaan. halkaas ayay Lubnaan waxay ka noqotay marka furaha ugu weyn ee mustaqbalka gobolka. maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray heshiisyo qayb ka ahaa in la joojiyo dagaalka u dhexeeya Israel iyo Hezbollah. heshiiskan waxaa riixaya madaxweyne Trump, gaar ahaan wasiirkiisa arrimaha dibadda. waxaa la sheegay in xitaa si toos ah loola hadlay Netanyahu si uu dagaal dheeraada u qaadin. laakiin su-aashii ugu weyn waxay tahay, Israel ma ilaalin doontaa heshiiskaasi mise sidii looga bartay ayay uga bixi doontaa? sababtoo Netanyahu wuxuu caddeeyey in ciidamada Israel ay sii wadi doonaan howlgallada koonfurta dalka Lubnaan, taasoo ka dhigan in xabad joojintu weli ay tahay mid jilicsan oo mar walba burburi karaysa. haddaba marka sawirka oo dhan la isu geeyo, waxaa muuqata in saddexdaasi dhinac ay doonayaan dhammaadka dagaalka, balse aysan isku raacsanayn dhammaadka iyo nooca uu noqonayo. Trump wuxuu doonayaa heshiis degdeg ah oo uu ku sheegto in nabad uu ka keenay ama uu ka dhaliyay bariga dhexe. Netanyahu wuxuu doonayaa damaanad xaqiijinaysa in dowladda Iiraan mar dambe aysan khatar ku noqon doonin Israel. awoodeedii dhanka hubkana gebi ahaan meesha laga saaray, sida gantaalada balaastiga iyo hubka nuclearka. Iiraanna waxay doonaysaa damaanad ilaalinaysa nidaamkeeda siyaasadeed, awoodeeda gobolka iyo danaheeda ay ku leedahay saaxiibadeeda gobolka. sidaa daraaddeed, dagaalka maanta kuma xirna oo kaliya gantaalada iyo diyaaradaha dagaalka, laakiin wuxuu ku xiran yahay miisaska wadaxaajoodka, taleefanada madaxda iyo heshiisyada qarsoon ee Tel Aviv, Tehran iyo Washington ay doonayaan, oo Qatar, Turkiga, Masar, Pakistan iyo dowlado kale oo Sacuudiga xitaa uu ku jiro ay ka shaqaynayaan. su-aasha hadda taaganna waxay tahay, yaa ku qasbi doona kan kale inuu aqbalo aragtidiisa? ma Trump, ma Netanyahu, mise Iiraan? yaana ugu dambeyn heli doona heshiis lagu ilaalinayo nidaamkiisa, dagaalkana gebi ahaan la joojiyo, sidoo kalena yaa guulaysan doona? jawaabta su-aashan waxay go'aamin kartaa mustaqbalka bariga dhexe
sanadaha soo socda adiga maxay kula tahay aragtidaada qaybta hoose ku reeb laagisaar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay